السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كيغا سيدي aad iga barateen ba alaaba waxaan halkan kaga hadlayaa hooyada uurjiifta cunuga yarka ee dhasha maxaa la yiraahdaa arrimaha qoyska insha Allah halkan waxaan ku soo qaadanayaa maantay qaabka ugu fiican habka ugu wanaagsan ee cunuga marka dhasho loogu qubeyn karo. waxa dhici karta dad badan in ay ku fakaraan markuu cunuga dhashaba in loo qubeeyo, laakiin walaalayaal waxaad ogaataan cunuga markuu caloosha hooyadii ka soo baxay ee biyihii uu ku jiray uu banaanka uga soo baxay waxa wali korkiisa saaran oo yacni uu biyaha kula haystay dufan. cunuga jirkiisa dufan baa uu maaragtay baa kor saaran. marka haddii aad hadiibana u qubayso ogow in dufankaas aad ka tirtiraysid cunugii oo aad ka dhaqaysid, sidaa darteed uu jirkiisa qalali doono. marka ayaamaha aad isbitaalka ku jirtid ha iska taaban cunuga, wax maaragtay qubaysa ha u dhaweynin. haddii aad jeclaysatay inaad cunugaaga u qubaysid waxaad isticmaali kartaa saliid saytuun ha kuu yaalo guriga, oo maaragtay waa waxa ugu wanaagsan ee ugu maaragtay caafimaadka badan ee aad cunugaaga ugu tirtiran karto oo aad ugu maaragtay masaajeyn karto. waxyaabaha kaleeto ee maaragtay baby oilka iyo maaragtay alaabta ciyaalka ee dukaamada lagu gado waxaa ka wanaagsan saliid saytuunta. okay, kuwaasba haddaad waad isticmaali kartaa haddaad rabto oo aad jeceshahay. okay, marka qaabkee iyo sidee cunugaaga ugu qubaysan kartaa? walaalayaal, cunuga intaadan qubayska ku bilaabin waxaad diyaarsataa alaabadiisii oo waxaad samaynaysaa waxaad soo qaadanaysaa oo miiska soo saaranaysaa buste baad miiska saaranaysaa suusa cunugaaga uusan u maaragtay meel sagxada uusan u seexan. waxaad kaloo bustihiisii dul saaraysaa shukumaankii aad rabtay inaad ugu tirtirato ayagana dul saar. waxaad soo diyaarsanaysaa alaabtiisii, saliidihiisii, saabuuntiisii. waxaad soo diyaarsanaysaa haddaad rabto shanlo yara, haddii kaleetana uma baahnid. waxaad samaynaysaa baaldigii aad cunuga ugu qubaysan lahayd ayaad soo diyaarsanaysaa. biyaha qabowga ah ayaad ku bilaabaysaa inaad ku shubto baaldiga, maxaa yeelay biyaha kulul hadhowta adaa u qiyaasan karaa. biyihii qaboobaa ayaad ku shubanaysaa, mana la rabo inaad baaldiga aad u buuxisid. in yaroo ilaa iyo maaragta calooshiisa tegaysa baad ku waxaysanaysaa. biyihii qaboobaa biyihii kululaa baad ku shubanaysaa. biyaha kulul marka see u ogaanaysaa inuu cunugu ku kulul yahay iyo inuu ku qabow yahay? qofkii haysta waxaa jirta geed temperatureka lagu cabiro, kii haystana wuu ku waxaysanayaa oo 36 okay buu gelinayaa ilaa 36 uga sheegto. kan degree weeye. kan haysanina wuxuu samaynayaa suxulkaaga waa meesha aad ugaga qiyaas qaadan karto in ay kulushahay inaad qabowdahay. suxulka geli. markaad ku qanacdo cunugaagi yaraa ee markaas kuu jiifay alaabtiisi dhan waa usoo diyaarisay, dharkiisii baad usoo diyaarsanaysaa, iyadana daayibarkii baad usoo diyaarinaysaa. waxa dhan miiskaad usoo saaraysaa. meesha aad cunuga ugu qubaysanayso agtiisaad soo dhiganaysaa. wax alaaliya wixii cunuga aad u gashan lahayd, daayibarkiisii, saliidihiisii, saabuuntiisii, wax walba. iyo waxaad kaloo soo diyaarsanaysaa warqad ama maxaa la yiraahdaayo ama markaasoo karto maro nadiif oo adiga aad jeceshahay. haddii kaletana warqadan waa warqad inay guriga kuu taalo ay habboon tahay. waa warqad aan biyaha ku go-oynin. waxaa la yidhahdaa warqadda dhaqita. ayadana soo diyaarso. markii aad intaas kusoo shubatay biyahaagii, warqadii kuu diyaarsaneed, warqadda ama googo-do cunugaa loogu tirtirtaa, saxaradaa loogaga tirtiraa, makaa go-eyso. marka intaas ay kuu diyaar noqoto, warqadan biyaha kusii qoyso, meel dhigo, meel saa u saaro. cunugaaga marka qaab nooceey ayaad usoo qabanaysaa, ugu qubeynaysaa. cunugii yaraa cunugaaga wuu kuu jiifay, gacan baad waxaad ka marinaysaa hoos, gacantaada bidixda ah hoosta ka mari, nabarka sii marsii iyo qoorta, gacanta ku dhig. marka cunugaagii gacanta soo qabso, muujeedaa waxaad ku haysaa markaas
koor sagaaro waad ku qabatay gacantaada midigta ah dabada dhankeeda waad marinaysaa labada lugood baad suulka dhex marinaysaa lugtan baad ayadana ku dhagaysaa waad soo qaadatay waxaan filayaa inaad ii jeediin gacanta halkan ka mari isagoo cunugii ku jiifay mari soo qabo ku soo dheg tan kaleeto hoos ka mari barida ka mari lugta bidixda iyo gacanta bidixda ah soo qabso cunuga marka biyaha aad gelinaysid waxaad bilaabaysaa dabada iyo lugaha inaad u geliso qaarkiisa sare adaa haya ma gelinaysid biyaha qaarka sare kana ilaali darbiyada inay madaxa uga dhacaan meelahaas dabada iyo lugaha biyaha u geli sidii cunug yaroo maaragtay kuu fadhiya camal baad ka dhigaysaa ma wada fariisanaysid laakiin saasaad u haysanaysaa warqadan saan idinkugu sheegayba biyo baad kusoo qoysatay soo maahan meel bay kuu saarnayd waxaad bilaabaysaa markaa jirka cunuga qaarna saabuun baa la marin qaarna lama marinaayo indhaha sanka afka dhabanada iyo madaxa saabuun ma marinaysid haba yaraatee wax shaaba ah wax saabuuna ma marinaysid biyaha cad oo keliyahaad marinaysaa okay maradan way kuu qoysnayd xoogaa way kuu yaro qandac bay kuu noqotay kuu qabowday indhaha marka badanaa ilmaha daaf iyo waxbaa laga yaabaa inay indhaha wax ka saarsaaran yihiin warqadda waxaad kasoo bilaabaysaa in isha dhinacaanaad kasoo bilaabay inaad soo tirtid isha inaad dhinacaas kasoo tirtid baad bilaabaysaa kan kalena inaad ka tirtid baad bilaabaysaa sanka iyo afka baad haddana kasoo marinaysaa mar walba aad marinaysa biyahaad kusoo qoysanaysaa sanka iyo afka baad soo marinaysaa haddaad doontidna halkii maray aad soo qoysatay unbaad ku wada marinaysaa indhahaad soo marisay isha kalaad soo marisay isha saanaad usoo marin saan uma marinaysid dhanka sanka ayaad labada indhoodba usoo marinaysaa intaas markaad wejigii iyo dhabanadii soo marisay waxaad marinaysaa biyihii haddana madaxii mar walbaba oo cunugaaga aad u qubaynayso ha ku jiijiidin ku salaax biyaha soo marso ku salaax cunugga ku salaax okay marka intaas saabuun la-aan labada indhood sanka afka dhabanada maxaan ku dhahayo wejiga iyo madaxa bilaa saabuun baad kusoo dhaqday marka saabuuntii baad bilaabaysaa saabuunta meelaha kuu taalo hadba soo marso hadba maradii aad haysatay ama warqadaas saa usoo mari markaad soo mariso dhegta iyo laabkeeda meelaha laalaabyada ah ay ka mid yihiin dhegta dhagaha qoorta kilkilaha maxaa la yidhahdaayo jilbaha laabkooda hoose iyo maxaa la yidhahdaayo hareerahan meelahan waa intaba waa meelaha maaragtay ee ilmuhu ay haddii aan laga dhaqin oon laga qallajin hadhowto si fiican looga qallajin waxay noqotaa hadhowto guduud marka saabuuntii aad soo marsato dhagaha ka bilow laabkooda ku soo dhaq haddana soo marso qoorta kusoo dhaq haddana soo marso gacmihii kusoo dhaq haddana soo marso waxaad ku dhaqataa kilkilaha haddana soo marso saabuuntii adoo mar walba biyihii la isticmaalayo mar walba adoo biyihii kaga dhaqayo caloosha waxaad ku xijinaysaa dhabarka waxaad kusoo xijisay labadii lugood iyo farihii iyo maxaan ku dhahayo meelahan laalaabyada ah marka ugu dambeeya waxaad marinaysaa meeshaan laabka ah kabacdigeedna dabada meesha maaragtay ee barida ee laga saxaroodo ayaad cunugga kasoo dhaqaysaa markaad halkan walaal marinaysaan saan usoo mari saa u mari ilaa gudaha saa u mari saan ha usoo marinin sidan u mari gudaha u mari intaas markaad cunuggii soo marisay weliba adoo intaas markaa marinayso cunugaaga ama waad ku ruxruxaysaa meesha tartiibtaada si ugu macaansado ama waad u heesaysaa intaas aad waxaad samaynayso cunugaaga la sheekayso beebigaaga yarka ah la sheekayso ha ku fiirsado ha ku daawado ha macaansado wehela ha dareemo waad u sheekaynaysaa waad u heesaysaa waad la qoslaysaa hadba saa maaragta adiga rabtid asna biyaha wuu macaansanayaa hadalkaada wuu macaansanayaa biyahana wax badan kaaga jirin cunugga haddii kale wuu qarqaryoonayaaye intaas markii aad samaysay sidii aad biyaha u gelisay baad usoo qabanaysaa haddana sidii biyaha aad awal u gelisay waa ii jeedaan
baad usoo qabsanaysaa shukumaankii aad diyaarsatay baad cunugaagii ku ridanaysaa waxaad soo bilaabaysaa marka sidii aad qubayska ugu bilowday qaabkii aad ugu soo qubaysay baad ugu tirtiraysaa madaxii iyo wejigii markaad tirtiraysid weliba adigoo saas sida maaragtay idid ka tirtiraysid oo kaleeto marada ha ku jiijiidin cunuga saas ugu soo tirtir dhagaha laabyadooda aad dhagaha laabkooda qoorta laababkeeda kilkilaha maxaa layidhahdaa laalaabkaas intii laabnayd oo dhan waa inaad ka qallajisid waa inaad hubsatid inay qallaleen maxaa yeelay haddii ay qallalin oo aad saas ku daysid hadhowto meeshii way sii huuraysaa way qoyaanay sii noqonaysaa cunuga hadhowto wuu kaa gaduudanayaa waxaa ka fiican marka meelahaas laalaabyada ah aad maaragta uga soo qallaji kabacdina waxaan ku dhahaayo madaxii iyo wejigii indhihii iyo dhegihii iyo meel walba markaa kasoo qallajisay dhaybarkiisa iyo dharkiisaad usoo xiratay intaas markaad u samayso cunugaaga aad usoo shanlayso haddaad shanlahaysatay dhag waxaa samaysaa cunugaaga soo qaado naaskaaga u dhigo cunugaagu markaas wuu kala dhici doonaa wuu kaa seexan doonaa insha allahu tacaala